aduu hadda masleedahay dalkan intii la isu masaajeeyo madaxweyne laga noqon karaa masleeda maxaa ka wada intii la isu masaajeeyo dalkan haddaan xoog dimuqraadiyadda iyo dowladnimada lagu hirgelin masaajo ma lagu hirgelin karaa 35 sano ka hor dimuqraadiyad xoog lagu hirgelin lahaa haddii adduunka waxaad ii soo sheegtaa dastuur heshiis lagu wada ahaa oo dal samaystay xabad juba adoon bedelin mawduuca oo raalli ah Soomaali xabad afkeed way is yaqaanaan haddaadan been isu sheegeen xasan sheekh maxamuud actually hadda uu ku cusub yahay inuu isagu taa fahmo ideyada ah in xabad caaradeed lagu hirgeliyo dimuqraadiyad reer muqdishona si fiican ay u yaqaanaan reer badan ah muqdisho ka soo dhacay dagaalkii afar biloodka ka soo dhacay ideyada ah wadankan xabada afka lagu hirgelina waana shaqeehe waana la socodsiyaha doorasho qof iyo cod aan la isticmaalaa adoo xabad wadatid Soomaali waxaas kuma shaqayso haddii aad riixayso ideyada cusub ee generation keenan haddii adiga maanta dhalinyaro badan oo kugu xiran yihiin aad riixaysa ideyada ah wadankan heshiis iyo walaaltinimo iyo in la xalliyo dhibaatooyinkii la isu geystay iyo in wax heshiis lagu wada yahay la wada qabsado waxba kuma suurtagelayaan ee xabaday ku suurtagelaysaa problemkaad qayb ka tahay markaas okay ustaad ama ku dhageystay adiga xoogay waxay dhageyso wadankan xoog baa lagu xirgelin karaa dastuurka iyo dowladnimada aan rabno marnaba baryo dowladnimada xasan rabo aan dhamaysto xasan kaana ku waalinay aan dhamaysto horta xasan meesha ma joogo anaa kula hadlayo xasan rabo u sheegda ummadda adiga horta i dhageyso saan kuu dhageysanaya i dhageyso okay bahasha dowladnimada Soomaaliya 35 sano la isturtuugayay awowa soo gal bahashan waxaa rabaa in lagu xirgeliyo xoog dastuurka ogoliya xooggaas dastuurka salahan hadda haddii arto in heshiis lagu galo al-shabaab heshiis ma la geli karnaa ma la heshiin karnaa dowladnimada ma ku soo gali ma soo tugtuugi kartaa adi mise inaad xabad madaxa ka gelisaa rabtaa labadaa ii kala qaadadu hadeer sidee Sheekh Shariif iyo Xasan Ali Khayre shabaab ku noqdeen ma waxaad barbar dhigaysaa laba nin oo wadanka madax ka soo noqday iyo shabaab qof kasta oo dowladnimada iyo dastuurka soo horjeeda dastuurka xoogga lagu hirgelinayo ma dastuurka Xasan rabaa mise waa dastuur Soomaali rabto dastuurka Soomaaliyeed sidee xoog loogu hirgelinaa marka baarlamaanku dalka ma matalaan miya dastuurka baarlamaanku ay xanjixiyeen see ku diidi kartaa baarlamaanka waqtigiisa waa dhamaaday yaa kugu yiri dhamaaday intuusan dhamaanba way saxiixay dastuurkani no baarlamaanka waqtigiisa mar hore dhamaaday dastuurka ka hor bay saxiixiyeen haddii legitimacy iyo mandate Xasan haysto muxuu ugu baahan yahay inuu xabad u qaato mucaarad sababta loogu qaadana waxay tahay qofka hadduu qori soo qaato qori baa la qaadanaya dastuurkii maadaama uu ideologically iyo propagandadii ku hirgeli waayay ku hirgelaya xabad iyo afka in la iska geliyo su'aal baa ku weydiinaya 1 minute xash maxmuud noqo xasan ilahay horta su'aasheeda kama jawaabaysid isi mutoobi kalaad furaysaa ay si waxaad samaynaysaa hal daqiiqo inta xash dastuurkii aysan Soomaali heshiiska ku ahayn juba ustaad adigu hal dastuurkii aysan Soomaali heshiiska ku ahayn afkeed maar rabtaa in lagu suurtageliyo oo loola macaamilo mucaaradka argagixiso inay yihiin لايكس سعودنا وبرنامج تاجر استاذ انا تاسوا يا 1 minute انت حشو محمود نقطه baarlamaankii dastuurkii soo ansixiyeen wiil yar baa intuu qurbaha ka yimid soo galay qoriyo soo qaatay madaxtooyada horteeda ku soo fadhiistay adoo had maanta xaliyaa madaxweynaha dalka ah niraayana wiilaa soo fadhiistay bal adiga maxaa sameyn lahayd bal hadda bal ii sheeg maxaa sameyn lahayd horta hala ribay isla fahmayna horta maxaa sameyn lahayd موضوع حسن شيخ نقو هرتكو ما نقون كرايو mana awoodo inaan ummadda Soomaaliyeed ku barakiciyo oo dhulkii gato markii labaadna barakac dambe aan ku rido oo aan afka ka geliyo tan kale waxa waaye waxaad adiga iyo tiimamka kale ee u ololeynaya dawladda arinteedu inay sax tahay waxa waaye waxaad isbarbar dhigaysaan argagixisada iyo laba nin oo wadankan mas'uuliyiin ka soo noqday xabad afkeedu hadduu yahay halka aydiyada ah kala adkaanshaha iyo xabada afka la iska geliyaha halkan aad iisoo fariisato ariya waa lagu qasba hadday shaqaynayso
soddon iyo shan sana la is haystaa maxay u shaqayn weysay philosophy-gaasi Jubbo lama isticmaalin ba hadda soo adigii dhahayay wadankan xabada afka la iska gelina massage ma shaqaynayo waana laga qaadaa hadda may dhahaynin philosophy-ga in la kala adkaado lama isticmaalin ba see loo isticmaalin lama isticmaalin ba guri hadda soo adigii dhahayay wadankan haddaan lagu kala adkaanin oo aan xabad afka la iska gelin oo aan la isu la joojiyo massage-kan iyo waxan iyo niikadan iyo waxan oo dhan oo aan maxaa la dhahaa xoog lagu hirgelin dastuurka iyo dimuqraadiyadda hadda miyaadan igu dhahayn horta waxaan ku leeyahay guys hadda ninkan ma igu dhahay warkaas misaanaha hadda horta ma ifaata waxaan kugu yiri hadda yartadan waxaan ku leeyahay horta ma ifaata waxaan kugu yiri soddon iyo hadda arrintaa may dhahay misaanaha soddon iyo shantii sano hal mar xataa firi dadkayna dhegaysanaya inaanan aniga ku nabayn baan ku sheegaya hadday ahayd Jubba markuu dhahayay haddii dimuqraadiyadda iyo dastuurka aan xabad afkeed lagu hirgelinin ninkan iyo afsoo war horta ma ifaata waxaan ku yiri jawaabteeda ka degdegaysa waxaan kugu yiri soddon iyo shantii la soo dhaafay haddii hadda aan la kala adkaanin oo aan xoog lagu hirgelinin ninka miraanya soo fariistayna la iska dhicinin ninkan kale la dhihin maxaad meesha usoo degtay dastuurka iyo dimuqraadiyadda Soomaalidana aan lagu hirgelin xabad afkeed hadda miyaadan idhahayn waa lagu kala adkaanaya sidee taas xabad wabar su'aasheeda sug kadibna hadal wixii waa arday inaad maanta u dhahadasho may wixii aniga uu ku celinaya macna waxaad dhahdaa ku celinaya dan waad inkiraysaa wixii aad dhahday haddana mawduuc kale adigu ku furaysaa Jubba cilad jirta waa hadda dhamayso waa ku dhageysanaya su'aashaan kugu celinaya waa very simple dimuqraadiyadda iyo dastuurka in lagu hirgeliyo xabad afkeed oo lagu kala adkaado hadda miyaadan igu lahayn waa ku leeyahay hadda baan ku leeyahay dhageyso okay hay igu celi marka waxaan ku yiri soddon iyo shantii la soo dhaafay waa la isu masaajeynay soddon iyo shantii sano la soo dhaafay okay lama kala adkaanin okay fahmaysaa dastuurka iyo dowladnimadana waxaa lagu waday walaalow soo fariiso iyo mabahebel iyo wadan meel ka baxsan lagu soo shiro okay oo maalinba Addis Ababa la tago maalin in Bagaati la tago iyo Nairobi iyo Balaayo okay waa socon weysi soddon iyo shan sano baynu wareersanahay maanta dastuurku dalku leeyahay madaxweynaha dalku xaq wuxuu u leeyahay dastuurkan iyo waxaan oo dhan inuu xoog ku hirgeliyo hadda aaminsanahay qof kasta Soomaaliya aaminsan carwa kaas bal weydii dadka may Soomaalida afayeen kama tiid adiga taada weydii dadka okay isla taadaasan kugu soo okay isla point-kaagaan kugu soo celinaya idea-da soddon iyo shantii sano ugu dambeysay waa dagaalamaynay waa la isu masaajeynayay number 1 Soomaali soddon iyo shantii sano ugu dambeysay isma masaajeyneen wax masaaj la dhahaa ma jirin dagaal sokeeya wadanka ka dhacay dagaal sokeeya ka dhacay Muqdisho dagaal sokeeya ka dhacay guud ahaan Soomaaliya okay amaan darro xunaa jirtay sababta loogu qabanayay shirarka banaanka iyo in dowladnimada Soomaaliya banaanka lagu soo dhiso oo iyadoo arinta laga soo shaqeeyay muddadii ugu dheerayd in ka badan 20 years 2012 wadankan ku meelgaar ka soo baxay madaxweynihii wadanka ku wareejiyay Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ku meelgaar ka soo bixiyay oo banooniga lagu soo celiyay Muqdisho dhexdeeda in maanta inta qori la qaato la weeraro xabad afka laga geliyo la dhaho waa lagu talina waana laga adkaana aryaa waa aamuse waana maxaa la dhihi jiray qof iyo cod la aada horta wax aqli gelaya ma ahan Soomaalidan ma kala adka idea-da waa la isu masaajeynaya waa la kala adkaana ma kala adka Soomaalida it's useless idea inaad dhahdo waa la kala adkaanaya hadda waa in qasab iyo xoog la isticmaalo hadday taasi shaqaynayso 21 years later si aad bara successful si ahaan lahaa wadankana si ahayn lahaa I wish inay shaqayn lahayd taas ما ربيت كوسع استاذ أنا هرت وحان ضلكي ما كل شيء وكبر باري وحنا كبرت حالة هالضلكنا وحي هورنا وان أخرية هذا حالتنا والله صعدة قبيلة الصوماليات بإستلية مرنا بالدولة الصومالية إيوه اسم الدلين ضد كده دولة الصومالية هالكا وحا أقلي وبابي سياسي شيشايا وطو iyo shabaab oo argagixisay laftigooda waxna loo soo waaray in kuwa laga adkaado anu kuma lihi dad Soomaaliyeed oo qabiilo Soomaaliyeed la dilaa xash maxamed dilaa kuma lihi laakiin wiilka yu dilay markuu gaaska mursada weerarayay bal horta ayaan ku dhameeyay dhageysadee ma isla su'aashaada ka jawaabaya yu dilay gaaska mursada markii la weerarayay qabiil Soomaaliyeed ma ahayn ugaaska mursada masaga dastuurka soo horjeeda mise xasan cali khayr ka soo horjeeda maya oo xasan cali khayr iyo ugaaska iyagoo meelkooda jira la weeraro iyo dad kale macnaha kuwaas yahuudi ahaayeen Soomaali ma ahayn su'aala ku weydiina
ugaaska maruursade marnaba dowladnimada Soomaaliya kama soo horjeedin wiilkaas Xasan Cali Khayrar dhahay uu matalo see u weeraray guriga marka haddii xabadu afka ka baxdaan inna ma xukuntid waa okay anu ma aaminsani dowladda ugaaska weerartay mabaan yaa weeraray marka ugaaska farxabad iyadoo socotay ugaaska meeshu taga dhageyso xabad may dhicin jubba isku day inaad bedesho xaqiiqada xamarka xabad waa socotay dhageyso xabad iyadoon dhicin buu ugaasku meesha joogay